min jinsi alcamal ayaa la yidhaahdaa. waxaa jiray nin haweenaydiisu la noolaa, laakiin wuxuu ahaa nin dhib badan buu ahaa, nin rabshad badan ayuu ahaa, nin wuxuu ahaa mar walba haweenaydiisa dhiba ayuu ahaa, u garaaci jiray. haweenka in la garaaca ma aha, haweenku waa bashar. nebiga calayhi الsalaatu wassalaam markii loo sheegay rag baa dumarkooga garaaca, nebigu waxa uu yidhi ma ulaa'ika bikhiyaarikum, kuwaasi kuwiina waa wanaagsan ma aha. nebigu waxa uu ihi khiyaarukum, kuwiina wanaagsan. khayrukum waxa weeye khayrukum liahli, kareerkiisa u fiican ee u naxariista ee u dhibriya, kaasaa ugu khayr badan buu ihi nebigu salى اllahu عalayhi wasalam. wa anaa khayrukum liahlii, xagga ehelkiisa markii la eegana anaa inigu khayr badan buu ihi nebigu calayhi الsalaatu wassalaam. dumarka waa in la karaameeyo, in la garaaco oo la dilo, in u loo qaato ma aha. dumarku wanaag iyo khayr bay leeyihiin, diintu siday ka yeeshay waa in laga yeelo. diintu wanaag iyo sharfin iyo karaamo iyo inay wanaajisay ayaa kitaabka ilaaha iyo sunnada nebiga lagu sheegayaa salى اllahu عalayhi wasalam. ikhwatii fi اllaah, ninkani haweenaydiisu la noolaa, laakiin si xun ayuu ula dhaqmi jiray, si adag ayuu ula dhaqmi jiray. dhibaato badan ayaa ka soo martay. maalin maalimaha ka mida sidii caadadiisa ahayd way iskhilaafeen haweenaydiisa. ninkii iyo haweenaydiisu way iskhilaafi karaan, laakiin si degan baa loo xaliyaa, si degan ayaa arinta loo dhammeeyaa. haweenaydiisii bay iskhilaafeen, si adag ayuu ula dhaqmay. ul adag bud buu qaatay, budkiibuu madaxa kaga dhuftay haweenaydiisii, way dhimatay. haweenaydii way dhimatay. muu doonayn inuu dilo, nafta inuu kaga qaado muu doonayn, waan edbinayaabuu islahaa, laakiin meel xun buu kaga dhuftay cadhadii. haweenaydii way dhimatay, dhulkay ku dhacday iyada oo meyda. muxuu samayn? khatar buu galay, dhibaatuu la yimid, qof muslim buu dilay, haweenaydiisii buu dilay. siduu u qarin karaa marka? waxa uu bilaabay inuu guriga ku xidho, u baxo, uu raadsado qof qaraabadiisa ah, qof u dhow, uu sirtiisa uu ku aamini karo. uu socday mid ay wax isku yihiin, uuna saani u garanayno qaraabadiisa ah, ayuu meel la fadhiistay. kadibna uu la tashaday, wuxuu yidhi arrin baan kugu aaminayaa walaalkayow. arrintaa waxaan kaa doonayaa inaad ii qarisid, inaad ii asturtid, inaad ra'yigaaga isiisid, inaad ila telisid ayaan doonayaa. maalinta waa maalintaan kuu baahnaa. waxa uu ku yidhi ii sheeg. wuu u sheegay, haweenaydaydii waan isdiidnay, waan iskhilaafnay, waxaan is idhi yaro edbi, bud baan u qaatay, waan ku dhuftay, way ku dhimatay. haweenaydii aqalka ayuu meydkaygii ii dhex yaalaa, maxaan sameeyaa niyahow? ila tali, tala fiicanna isii aan ku badbaado. xadhig ma doonayo, dil ma doonayo, ceeb ma doonayo. waxaan doonayaa inaan ka baxo dhibaatada aan ku dhacay. seen uga baxaa? uu fikiray, shayطaan baa la fikiray, wuu la rogrogay. baaطil buu ugu gargaarayaa. ilaahay waxau leeyahay baaطilka isku gargaarina, wanaagga iyo allah ka cabsiga hal isku gargaaro. kadibna waxa uu ku yidhi, war ra'yigayga aan kuu sheego, waxaad yeeshaa, waxaad raadisaa wiil yar oo qurux badan raadi. kadibna ninkaasi soo dhowey wiilkaa yar, aqalkaaga keen, kadibna dil, kadibna qoorta ka go, madaxiisa duldhig. waxaad ka raahdaa, waxaan ugu imid haweenadayda isaga oo xumaan ku samaynaya ayaan u imid. kadibna waan adkaysan waaye, sharaftaydan ku dhintay, waan difaacayay sharaftayda iyo cirdigayga. sidaasaan u dilay wiilka yar iyo haweenadaydiiba waan israaciyey. sidaa dheh, taasaad ku badbaadi kartaa. arrintii ninkii waa ku farxay. waxa uu ku yidhi, wallaahi fikra cajiiba ayaad ii timid, ayaad ii keentay, khayr allah ha ku siiyo. u dhaqaaqay,
meel buu fadhiistay wuu fikirayey kadibna wuxuu arkay wiil yar oo dhalinyara oo xoog badan oo nicmadu ka muuqato ayuu arkay kadibna kii yaraa buu ka hortegay wuu salaamay ka yar isma yaqaanaan si fiican buu u salaamay kii yaraan wuu yaaban yahay laakiin waxa uu ku yidhi warniyahow kaalaan isbaranne waan ku soo dhowaynayaa aqalkayga kaalay wuu jiiday wuu adkaysan waayo yarkiina wuu yeelay sidiibu ku raacay aqalkiisii buu tegey kii yaraa buu yidhi sharaabiyo waxbaan kuu keenayaa kadibna albaabka ku xidhay kadibna madaxu ku dhuftay wuu dilay naftu kaga qaaday kadibna qoortu ka gooyey kadibna meydkii haweenaydiisa ayuu qoortii dul dhigay kadibna sidaasuu ku baxay dadkiibu u dhawaaqay qaraabadeediibu u yeedhay waxa uu ku yidhi inantiinii waan dilay kaalaya meydkayga qaata way khaayinta wiil yar bay soo kaxaysatay xumaan bay gurigayga ku samaynaysay iyadii iyo isagiiba waan dilay kaalaya saasuu rabaa arrintaasi ayuu rabaa inuu ku yidhaahdo laakiin intuuna arrintaasi uuna tolkeed uuna gaarsiin intuuna ku dhawaaqin arrintaasi waxa uu goostay inuu saaxiibkii ninkii fikraddan siiyey inuu u yeedho inuu yidhaahdo waad ku mahadsan tahay arrintiin waan yeelay waa kan ninkiiba albaabka ku soo garaacay wuu u yimid way isula dhunkadeen wuu ugu mahadiyey fikraddaadii aad baan ula dhacay maskaxdaadii waxay ahayd maskax weyn khitadii qorshihii aad ii dhigtay mid aan ku badbaaday ayuu ahaa wiil yar baan helay waan dilay qoortaan ka gooyey madaxiisiina waxaan dulligay kaalay oo arag wuu soo galay muxuu arkay laa ilaaha ila allah muxuu arkaad u malaynaysaan akhawaatii wa ikhwatii fi illaah muxuu arkay wuxuu arkay waaba inankiisii kan qorshaha u dhiibay inankiisiiba weeyaan xaggiibu ku dhacay waa inankiisii wuxuu diiday aljazaau min jinsi alcamal wixii aad la timid ilaahay uu ka abaalmarin shar iyo xumaan ayuu u qorsheeyey wuxuu doonayey inuu dhiiggaa u baabi'iyo wuxuu doonayey inuu wiil yar oo beriya inuu dembigiisa uu isaga u saaro laakiin ilaahay isagiibuu ku soo celiyey xumaantiisii isaga ayaa laga soo muujiyey dembigu ma qarsoomo khaladku ma qarsoomo dhibaatadu aad dadka aad gaadhsiinaysid waa wax lagu hayo ninkaasi ilmihiisii ayuu noqday qofkii la dilay ee qoorta laga gooyey ee tuhmada la saaray ee la yidhi isagaa kufsanayey dee ra'yiga isagaa siiyey ilaahay xaggaasuu ka soo saaray kamaa tadiinu tudaan waxaad samaysid ayaa lagugu abaalmarin ikhwatii fi illaah weligaa qofna shar ha ugu gargaarin xumaan ha ugu gargaarin wanaagga dadka ugu gargaar khayrka dadka ugu gargaar dadka isku day inaad nicmadda ilaahay islaamnimada wanaagga inaad tustid inaad khayrka ugu yeedhid haddii kale dhibaatada hoostaada ka soo bixi wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu